deegaanada deeqdan lacageed laga qaybiyay waxaa kamid ah fadhixun carawareen fardaha garbadadar iyo gargaara oo ka tirsan goboladan Awdal iyo Salal waxaana ku dhaqan oo deeqdan gacanta loo geliyay 22 caruur ah oo qaba xanuuno kala duwan kuwaasi oo dhawaan aynu ka baahinay TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel deeqdan lacageed waxaa soo aruuriyay hay'adda samafalka ee Qubar Relief waxaana wakiil ka ahayd Luul Aadan Lo'doon oo deeqdan lacageed 22 kan caruurta ah gacanta u gelisay waxayna Luul Aadan Lo'doon ka hadashay goobihii kala duwanaa oo deeqdan lacageed ku wareejinaysay caruurtaasi xanuunada kala duwan qaba waxayna faahfaahisay sida ay u qaybisay meelo badan baan soo marnay iyo fardal xorka carawareen fadhixun gargaara badar على حرب كسر دمبيني إن شاء الله الله سبحانه وتعالى إنه يقدر جزاسية برنامج كي صدقات فضل الله نأتي يوم القيامة لما تيجي ذا شو لما أنت صدقات كلام بحضي هو حديث رسولك عليه الصلاة والسلام دوا برضاك بصدقة إلى رسولك عليه الصلاة والسلام حديث الله سبحانه وتعالى عارفنا قبل لما تيجي وحيدير جينا يا هناك يدير جينا لما تيجي كراشن وما سنتين دقة نسينا ويديكوا بدوني إلى هي دقة نسيه إيه كل المواد داري ما كان أنت ما هاد من فدين الله. أنا هيدا تبعية ونفتحنا هايسا بهاي النبوكين ورجل جاري يوم ما هاد إسكالية وهي قوة تصي قوة كبرات الدومي قوة دجالية قوة صيادة صدرية دمناتو بمهد يا سلام برب الدين الله قلبك يكشك كسر قدرك ويا بغاتنا وطن هايستا جرجار مدد آدمي إسلامنا ولا علمنا يعني أنت ما بمعنى